السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada waxaan ahay Ibrahim Aadam waxaan rabaa in aan muuqaalkan kuugu la wadaago talaabooyinka ama wadooyinka aad doonayso in aad qaado si aad u noqoto muuqaal soo saare aad u wanaagsan ama YouTuber farta ka xiran oo dhameystiran inta aynan muuqaalka u guda galin waxaan rabaa inaan halkan uga mahadcelino ama aan soo dhaweyno akhyaarta cusub ee nooga yimaaday waa Bari Media sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan uga mahadcelino walaalkeen Cabdiraxmaan waa Bari aad ayaad u mahadsantahay channelkeena xiga waa Ib Aadam waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa dabeecado laga yaabo in aad leedahay balse naftaada ka dhigayo mid destroyed ah ama burbursan oo daciif ah channelkan ayaa lagu soo bandhigaa muuqaalo kala duwan oo ku saabsan xirfadaha iyo sidoo kale shaqooyinka online-ka ah maanta waxaan dhihi karnaa waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee aad maalgashan kartay suuqa crypto yacni waa waqtigii ugu fiicnaa ee aad ku soo biiri kartay ma doonay in aan waqti badan kaasi qaato waxaan rabnaa inaan si toos u guda galno muuqaalkeena maanta maxay yihiin wadooyinka aad doonayso in aad qaado si aad u noqoto YouTuber dhameystiran waxaan hubaa haddii aad wadooyinkan qaado in aad noqon doonto muuqaal soo saare farta ka xiran laakiin marka hore waa in aad u diyaarsan tahay talaabada ugu horeysa ee aad doonayso in aad qaado haddii aad doonayso in aad noqoto YouTuber farta ka xiran waxay noqonaysaa go'aan in aad go'aan qaadato go'aan qaadashada waa waxa ugu adag markii aad doonayso inaad wax bilowdo bilowga hore waa wax aad u adag waxaana adkeenayo go'aan in aad go'aan qaadato marka haddii aad rabto inaad noqoto YouTuber dhameystiran marka ugu horeyso waa in aad go'aan qaadataa waa in aad qaadataa go'aankii aad ku noqon lahayd shakhsi diyaarsan soona saaro muuqaalo aad u qurux badan YouTube kana soo geliyo talaabada labaad ee aad doonayso in aad qaado waxay noqonaysaa baro qaab soo jeedinta isku diyaari si heer sare ah si aad si wanaagsan oo la jeclaan karo aad wax ugu soo jeediso ama aad ugu soo saarto run ahaantii waa xirfad la barto qaab soo jeedinta dadka qaarna ayagoo yaqaano ayay is arkaan dadka qaarna way bartaan oo waa xirfad la barto qaab soo jeedinta marka haddii aadan aqoonin baro qaab soo jeedinta si aad u noqoto qof soo jiidasho leh qof la fahmi karo waxa uu soo jeedinayo talaabada saddexaad ee aad doonayso inaad qaado ahna mid ugu muhiimsan waxay noqonaysaa dooro mowduuc ama niche aad ka hadlayso waa in aad doorataa mowduuc aad jeceshahay in aad ka hadashid inta badan ama aad jeceshahay in aad soo jeediso waa in aad doorataa mowduuc aadan ka caajisaynin soo jeedintiisa yacni dhowr mowduuc oo kala duwan waa dooran kartaa laakiin waa inay iska ag dhawaadaan ama waa inaad doorataa mowduuc aad ku raaxaysanayso marka aad soo jeedinayso talaabada afraad ee aad doonayso in aad qaado waana tan ugu muhiimsan waana tan saldhigga u ah in aad noqoto muuqaal soo saare dhameystiran ama YouTuber dhameystiran baro software kamid ah kuwa muuqaalada lagu edit karayo waxaana ugu caansan Adobe Premiere Pro ama CapCut Desktop oo ah midka ugu fudud anagu hadda waxaan isticmaalnaa ama muuqaaladeena aan ku soo saarnaa Adobe Premiere Pro iyo CapCut Desktop labaduba waan isticmaalnaa waa in aad heshaa laptop ama computer waa waxa ugu muhiimsan waa haddii aad doonayso in aad heer fiican ka gaarto xirfadda muuqaal sameynta iyo YouTubernimada waxaan ku talinayaa in aad laptop raadsato waxa ay kugu qaadatoba waxaad raadsataa laptop fiican oo aad maaragtay muuqaalada aad ku sameyn karto yacni mobile wax waad ku edit gareyn kartaa laakiin waxaan ku talinayaa in aad raadsato laptop ama computer si aad u soo saarto muuqaalo aad u qurux badan sidoo kale waa in aad barataa software kamid ah softwareada codadka lagu edit gareeyo waxaana ugu caansan oo aan anaguna hadda isticmaalayna ama codkan aan ku edit gareynayna Adobe Audition waxa iskala shirkadda Adobe sidoo kale waxaa jiro yani software kale oo lagu edit gareeyo codadka ayagana waad baran kartaa ama adiga midkii ku fudud markaas helitaankiisa iyo fahankiisa ayaad baran kartaa sidoo kale baro software kamid ah softwareada waxa lagu naqshadeeyo waxa ugu caansan Photoshop laakiin waxa ugu fudud oo una sahlan oo aad baran kartaa Canva waa mid kamid ah applicationada ama softwareada waxa lagu naqshadeeyo waa midka ugu fudud oo aan anaga laftirkeena hadeertan aan isticmaalayno sidoo kale in aad barato softwareada waxa lagu naqshadeeyo waxay ka qayb qaadanayaan in aad naqshadaysato ama aad samaysato thumbnailka waa waxa ugu muhiimsan markii aad YouTuber tahay waxaad u baahan tahay thumbnail aad u qurux badan ee ka soo muuqda wajiga hore ee muuqaalka aad soo saartay marka thumbnailka aad ayuu muhiim ugu yahay muuqaal sameynta talaabada shanaad ee aad doonayso in aad qaado waxay noqonaysaa baro sida loo diyaariyo ama loo qoro transcriptiga yacni mowduuc ayaa dooratay niche ayaa dooratay waxaad soo helaysaa mowduucaas aad rabtid in aad uga hadashid muuqaalkaas kadibna waxaad qoraysaa transcript aniga laba nooc ayaan soo isticmaalay mid ugu horeyso oo ah in aad qorto dhammaan waxa aad ka hadlayso kadibna aad halkaasi ka aqriso ama computerka aad ka aqriso markii aad codka duubaysid ama markii aad muuqaalka duubaysid laakiin midaasi aad ayaa looga fiican yahay sababtoo ah waxaad ku xadidnaan doontaa
inta aad qortay. midda labaad ay aad u wanaagsan oo ah in aad qodobayso oo yacni qodob aad u qorto. qodob ayaad ka dhigaysaa, kadibna qodob kasto ayaad kor istaagaysaa si tafatiran oo dhammaystiran ayaadna oga hadlaysaa. marka waa inaad barataa qaabka loo qoro transcriptiga. haddaba marka aan intaas soo sameyno 80% waxaan nahay YouTuber dhammaystiran. tallaabada lixaad ee aad doonayso in aad qaado marka waxay noqonaysaa official Gmail. waa inaad create garaysaa ama aad samaysataa Gmail sax ah. iska ilow midka aad markaas isticmaalayso. waa in aad abuurtaa Gmail cusub oo aadan hilmaameynin passwordkiisa. passwordka waa in aad ka dhigtaa mid aad u adag oo aadan hilmaameynin. yacni waa wax ugu muhiimsan Gmailka. si aad u create garaysaa ama aad u samaysaa channel YouTube ah, waa in aad heshaa Gmail marka horeeto. tallaabada 7aad ee aad qaadi doonto waxay noqonaysaa waxaad dooranaysaa magac fiican ama magacaaga ama magac kale oo aad jeceshahay oo aadan bedelaynin. yacni magac waad bedeli kartaa hadhowti, laakiin waxaa wanaagsan in aadan bedelin magac lagugu bartaa. marka waa in aad si fiican uga fikirtaa magaca aad dooranayso. markii intaasi aad samaysid waxaad qaadaysaa tallaabada 8aad oo ah in aad create garayso ama aad samayso kanaalkii. markan go'aankii waan qaadanay, qaab soo jeedintii waan baranay, mowduucii ama niidkii aan ka hadli lahaynna waan dooranay, softwareska wax lagu edit garaynayna waan baranay, Gmailkii iyo kanaalkiina waan abuurnay. waa maxay next step marka? next step waa wax aad u fudud. waa stepka 9aad. wuxuu noqonayaa waa in aad bilowdaa. markan waxaad u diyaarsan tahay ama aad u baahan tahay in aad bilowdo. bilow waa in uu shaqeeyaa go'aankii aad qaadatay. waxaad dib ugu laabanaysaa niidkii ama mowduucii aad dooratay, kadibna waxaad create garaynaysaa ama aad abuuraysaa muuqaalkaagii ugu horreeyay. waxaa jiro muuqaal aan ka sameeyay wadadii aad qaadi lahayd si aad u soo saarto muuqaal dhammaystiran sida midkan oo kale, oo waxaan ku sharaxayaa ama aan kugu tusinayaa wadooyinka aan qaado si aan u soo saaro muuqaal midkan oo kale ah. marka si aad u soo saarto muuqaal dhammaystiran kadib markii aad daawatay muuqaalkan oo aad baratay 9 wado ee aad u baahan tahay in aad qaado, daawo muuqaalkan. linkiga muuqaalkan waxaan kuu soo dhigi doonaa qaybta commentiga ugu horeeya ama qaybta descriptionka ama qaybtan koraba ayaan soo saaraya. markii aad daawatid kadib muuqaalkaasi waxaad soo saari doontaa muuqaalkaaga ugu horreeyay oo ah muuqaal aad u qurux badan. haddaba waxaan ku leeyahay ku soo dhawow shabakada muuqaal samaynta. waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iiday. inta aynan muuqaalka dhammaynin waxaan kaa codsanayaa in aad kanaalka ku soo biirto ama ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah aad gaarsiiso. salaamu calaykum.